sidaan la wada soconaba dhammaanteenba bulshooyinka Soomaaliyeed waxa ay la socdaan in maalmihii la soo dhaafay gudoomiye madaale in xilkii laga qaaday laguna wareejiyay nin musuqmaasuqa dhalay hooyo iyo aabe iyo adeer iyo abti labadaba oo ahaa kaas oo lagu magacaabay inuu ka noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan jecelnahay inaan idin soo gudbino wax allaale iyo wixii la tacalluqa qofka Soomaaliyeed iyo taariikhdiisa iyo CV-giisa iyo haddii uu ku jiro baal madow. waxaan jecelnahay in taabid aan dhammaan uga sheekeyno xaaladihiisa iyo sida uu yahay iyo sida uu ku soo baxay iyo ma yahay nin u qalma inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ahna duqa magaalada Muqdisho. aan ku bilaabo taabid waa nin isla weyn, waa nin jaahil ah, waa nin qabiilista ah, waa nin khaa'in ah oo tuug ah, waa nin ugu talagalay in uu dhaco bulshooyinka Soomaaliyeed. waxaana taas daliil u ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo ilaa iyo 10 ilaa iyo gaarayso 80 qaarna 90 qaarna 110 laga soo dejiyay oo soo saxiixay in wadanka lagu celiyo. waxaana si toos ah aan maanta aanu la hadlay dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyo xaqiijiyeen inay xataa qadka telefoonka kula hadleen intii uu fadhiyay qunsuliyadda ama safaaradda Soomaalida ee ku leedahay dalka Mareykanka. ninkii oo sidaas ahaa ayaa maanta waxaana loogu magacaabay inuu yahay gudoomiyaha duqa magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir. annaka maxaana la gudboon waa inaan ka hadalnaa waxa uu yahay iyo waxa uu galo annaka qofna aanan u naxaynin. maxaa yeelay waxa nagu jiro waxa waa damiir wadanimo, waa damiir ka soo horjeedo anti corruption. annaka uma baahnin in aan dhahno qof oo musuqmaasuq adeer iyo aabo u ahaa ayaa maanta gobolka loo dhiibayaa aan u sacbatumno. taas waxaan ku fashilminay markii uu madaxweyne Farmaajo loo magacaabay asagoo ku dooday inuu yahay u doodaha danta dalka iyo dadka, taas oo aan ugu magacdaray aniga dabargoynta dalka iyo dadka. waana wax iska xad because waxaan aragnay qaraar ee maanta ay soo saareen qaramada midoobeed ama UN-ka ku uu joogo magaalada Muqdisho inay sheegeen labadii wiig ugu dambeysay 50% inay weeraradii kor ee u kaceen shacabka Soomaaliyeed ay dhamaadeen. maxaa yeelay waxa taasna u cad haddii madaxdu ayagu
ay ugu talagalaan inay dalka iyo danta wax u qabtaan waxay ka hormarin lahaayeen tooda, laakiin waxay ka hormariyeen inay ayaku toodu ay jeebka ay gacanta ay gashaan siday u baabiyeen bulshaweynta soomaaliyeed. taabit oo aan ogsoonahay dhalinyaro soomaaliyeed oo xataa aan uga jeedo liveka inay ka daawanayaan oo aanan rabin inaan magacyadooda aan sheego, ayaa la hadlay xilligii ay ku jireen Mexico xabsiga, wuxuuna uu sheegay in uu madaxtooyada intuu macawiis uga baxo uu bakaaro uu tago kuna soo laabto. been intaas la eg miyaa jirto? waxaan la ogsoon yahay in ay lacagtaas ay wada qaateen inta ka shaqeysa immigrationka, gaafow ha ugu sareeyo, koofi ha ku xigo, iyo asaga oo ahaa qunsuliyadda. dhammaantoodba waxay ahaayeen dad aanan matalin shacbiyadda soomaaliyeed iyo dad aanan ku jirin damiir bulshanimo iyo damiir wadaninimo. dhalinyaradii soomaaliyeed ee lasoo tarxiilay oo ilaa iyo intaasoo wadan asian iyo oroba iyo africa isku dalxiisay isku gooyey, kuwaas oo xataa qaarkood xataa markii ay ka hadlayaan xataa dhaqaale aysan haysanin, laakiin ay ugu talagaleen inay aadaan markii maraykan ay tagaan inay badbaadiyaan nafta faamilkooda iyo tooda. markii ay meesha uu tagay ay tageen ayuu wuxuu ku yiri waryaada wadankiina ku laabta, meeshaan wadankiina nabad ah. maantana magaalada muqdisho ay wuxuu ku yihiin shaqo la-aan, amni la-aan iyo xataa caafimaad la-aan. maxaana la gudboon annaka haddaan nahay soomaali? waxaana la gudboon inaan ka hortagno oo gobolka banaadir waxaan nahay dadkii kasoo jooday, xuquuqdana u doodayo. xuquuqda gobolka banaadirna loogama hebeysanayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan inta ku xeendaaban madaxtooyada kuna dhex jiro baabuurta gaashaaman ee loogu talagalay in lagu ilaaliyo lagana ilaaliyo shacabweynaha soomaaliyeed. ninkii soomaali qaxooti ah lacag yar kusoo iibsaday ma waxaa is leedahay muqdisho ayuu nabadeynaya? ma nabadeynaya. muqdisho intuu beecsado oo gato ayuu xataa wadooyinka gadanaya. waana xaqiiq cad. waxaan rabnaa marka in ninkaas laga hortago, taabit laga hortago oo laga hortago nin waxa waaye oo ugu talagalay una soo shaqo tegay gobolka inuu beecsado. waa nin usoo shaqo tegay qarannimada soomaaliyeed inuu beecsado. waa nin usoo shaqo tegay inuu gato gobolka banaadir oo idin. dhammaantiin waxaan idin leeyahay ka lacag ku doorsano wax la taay ku dir jiray dhexdiisa leh, ku dib jiray dhexdiisa leh. ka lacag ku doorsano wax kasta ku dib jiray dhexdiisa leh. abwaan xiir oon ogsoonahay inuu yahay abwaanada soomaaliyeed, gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee u dooda qabiilka, ayaa maanta waxa aan iisoo qorayaa ilaahay ka baq. war ilaahay haddaan ka baqayo maadaan ka cabsanaynaa? ilaahay waan ka cabsanaynaa. waxaan ugu talagalnay inaan ka jirno dadka danta ugu talagalay inay ummadda jeebkooda ay ku noolaadaan. waa dadkaas qof aan ka cabsanayno oo shaksiyan ma jiro allah subxaanahu watacaala aanan ahayn. adiga haddaa maraykan aad joogtidna waxaad ka mid tahay dadka ka qaata lacagta ee u shaqeeya gaalada iyo maraykanka. naga tag. daahir wuxuu leeyahay maxaa ka fiican dad xabsiya ku jiro in dalkooda lagu soo celiyo? dadka xabsiyada ku jiro haddii aad taqaanid waxa ay qabato wasaaradda arrimo dibadeed ama safaaradeed, waxa ay qabataa in markii dad la xiro ee u doodo. dadkaas markii la weydiiyey oo la yiri war dadkan qaxootiga ah ee waddanka soo gelayo wax u keena ama dalka ku celiya, waxay dhaheen haya waddanka ku celina way soo ordeen. warqaday ka qaateen, lacagay ka qaateen, min qof $500 ayaa lacag la siiyey, lacagtay ka qaateen dalkay kusoo celiyeen. laakiin hadday dhihi lahaayeen annaka waddankeenna nabad kama jirto,
amni kama jiro kama dambeyn kama jirto dadkan dad soo taariiba oo dhibaataysan nolol ayay rabaan ee hala noolaya hadday dhihi lahaayeen ee warqadan ay wadaan oo warqada ah waa warqada wax ay tarayso ma jirto ee warqadan ay wadaan ee 500 ay ku gateen ay dhihi lahaayeen warqadan ma dhiibeyno mana siinayno cid soo celin karta ma laha marka dadka xabsiyada ku jiro ayaga ugu talagalay waana xiriir kala dhexeeya ayaga immigrationka iyo dadka xabsiyada ku jiro waana wax iska cad marka hadaadan information badan aad ka haynin maaha inay hadasho laakiin annaka warbixin badan ayaan ka haynaa nuur wuxuu leeyahay adiga ma dowladda u shaqeysaa maxaa arrinkan kugu qasbay ani arrinkan waxa igu qasbay ani dowlad uma shaqeeyo qof Soomaaliyeed baan ahay oo wadani ah oo jecel in ay shacabkiisu oo horumar iyo barwaaqo iyo nabad uu helo laakiin ma ahan in aan aniga aan taageero qof aan ku ogahay inuu maanta uu shacabkii Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhibaataysna wuxuu qaban waayay inuu ku gudaha wax u qabanayo midaas waa mid aan ii keentay inaan ka hadlo محمد عمر وحول لي صاحب صح آدي هذا وما صنتهاي كافي وعلى ذا رنتي ودباتو لأن يرى تهريبي دباتو تي حدنا لصوت رحيلة انتي تهريبتي ايجا قران كرتا نبكيزا برافو ورنتي تقبل ناس آدي هذا وما صنتهاي وعنا كهذا الشيء dhibaatada ku jirto qofka Soomaaliyeed ee tahriiba markii uu taariikh wadan uu tago asaga ayaa garan karo dhibaatada ku jirto markii dib loo soo celiyo marka aad u maasantahay waa qof ilbaha waxna fahmi karto wariya nuune wuxuu leeyahay wadani ayaa tahay mas'uul ma sha Allah aad u maasantahay warsame wuxuu leeyahay warunta saaxiib Xasan dhibood wuxuu leeyahay laakiin ma loo kaadiyo sidee loo kaadinaya hore waxa idinka weydiinaya anaka hota inaana Soomaaliya ay raac oo doqoma oo rebaadiyala oo aan waxba kala fahmaynin oo meeshii dabeesh u socoto iska raacayso markii la magacaabay farmaajo waa loo sacbiyay farmaajo wuxuu yiri aniga waxaan u shaqeyn doonaa danta dalka iyo dadka ilaa haddana wax amni iyo nabad laga qabto ma jiro ilaa hadda wax shacab wax loo qabto ma jiro dadkii ayaa dhamaanaya baaba'ay waxaan ogsoonahay in uu yiri waxaan la dagaalamayna musuqmaasuqa waxa lagu la dagaalamayaa qabaa'ilo Soomaaliyeed ee jiro ee jiri jiray waxna u soo qabtay ilaa iyo dawladii ilaa iyo 60kii markii ay qaadana xornimada dadkaas ayaa la rabaa in la gumaado oo lagu ibtileeyo oo la dhaho musuqmaasuqnimo ayaa ka shaqeynaysan laakiin dadkii musuqmaasuqa hooyay aaba u ahaa iyo abti oo ku jiro oo laga soo wadiray safaaradda hadana la keenay caasimadii madax looga dhigay dadkaas waa dadka anaga aan rabno inaan ka badbaadino wadanka Soomaaliyeed kamana cabsanayna ciidan laakiin xaqiiqdu waa in laga hadlaa maxamed wuxuu leeyahay damajid maxaa shalo mucaarada hadii la dalacsiiyay maanta damajid waxa loo mucaaradi jiray waxa la diidanaa dhaqaalaha ay kaliya ay ku soo koobeen madaxtooyada oo ay shacabka Soomaaliyeed baahnaayeen waa midaas mid la diidanaa laakiin damajid cidii diineed cod ka soo horjeeda ma jirto فرحان عرتن ورسمة خير وحوليه تابد وانن حون دلنيرا لعق بدن 20 كن كقبح ذي السقع ترحيلي وكاس هذا لا أن رادينا آية تاسعد 20 كن ما هنا إن كبدن آية كبح ذي دد رولكو ذي لو صقري دد ديمه لو صقلي دد كاس أي وحقوق قاتل عقير كواس أي مقدشة لجوسه عليي مركب مقدشة لكاننا وح أي ما أنت أي كسبيه نور والله آدي حن وحد دريمي كرو qofka Soomaaliyeed ee tahriibay ama qofka Soomaaliyeed ee wadanka ka tagay ama qofka Soomaaliyeed ee dib loogu soo celiyay asagoo hamigiis u ahaa inuu meel sare u gaaro marka ninkaas ayaa rabnaa in maxkamad la soo taago diblomaasina maaha mana matalo cid u matalana ma jirto dadkaas waaya dadka la rabo in laga qabto shacabka Soomaaliyeed maaha in la rabo in laga qabto shacabka nin rabo wadanka iyo dadka iyo danta inuu u shaqeeyo laakiin bil cagsi saxiix ay u shaqeynaysaa dawladdiyo dadkii wax ka shaqeynayay gobolka oo dadkii wax ka shaqeynayay arrimaha Soomaaliya ay rabaan inay ku qariyaan magac musuqmaasuq ee dhahan kuwaas ayaa wadanka waxba u qabanayna marka waa arrin aad iyo aad u xun sorry haddii aan inta badan dadka aanan akhrin علي سعيد علمي وحوليه سوري دلنيردي إن لعق لجو بدشوا هدنا ننكي كدن بيجي أرنكاز قدومية لقديكو قبل كي بنادر
oo qiimaha lahaa waa arrin aad iyo aad uga xun waxaana uu fahmay inuu ka xun yahay ninkii dadka soomaaliyeed lacagta kusoo qaatay haddana maanta laga dhiga mas-uulka ugu sarreeya ee gobolka banaadir farxaan wuxuu leeyay waa tuug dhalinyaradii dhammaantood ayaa soo wadagelayso ilaa iyo hadda 183 qofood ayaana daawanayso ugu yaraan inka badanna si indirect ay ku daawanayaan totally waxaan ku qiyaasi karnaa in daawanayso ilaa iyo 1500 oo qof marka dhammaantiin waxaan idin leenahay barnaamijku waa barnaamij aad iyo aad u xiiso u leh waxaana jeclaan lahaa inaan dhalinyaradii qaar kamid qadka soo geliyo galabta laakiin waa ii suurtagali weyse insha allahu tacaala waxaan jeclahay inaan qadka aan soo geliyo ayaga oo difaaci doono dadnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed kana difaaci doono qof allaale iyo qofkii ugu talagala in uu wallahi maanta video aan daawanayo oo dhalinyaradaas qaarkood way oynayeen way ilmeynayeen war sidee ku dhici kartaa ninkii annaka na soo gatay war sidee ku dhici kartaa ninkii annaka na baaba'shay war sidee ku dhici kartaa ninkii annaka tale wallahi wiila wuxuu ku hadlaayay 3 times ayaan telefoon kula hadlayo aniga wuxuu igu jawaabay wariya bax wariya macawis ba aniga uga baxaa madaxtooyada ayaan waxaan ku tagaa bakaaraha ee nabada wadanka baxaad wallahi been ma ka sheegaa videoga YouTube ku jira la raadiyo dadkaas waxaan leeyahay markaas waa madax war musuqmaasuqa ninka ugu weyn waa taabid gobolka banaadir laga qaado war musuqmaasuqa ninkii dadka soo tarxiila waa taabid laga qaado gobolka war musuqmaasuqa ninkii dhalay waa taabid gobolka laga badbaadiso war Soomaaliya kaca ninba wuxuu gobolka ugu yimid ololayn iyo la dagaalan oo kula dagaalamay Xasan Sheekh dartiis ayuu wuxuu ugu yimid inuu maanta gobolka banaadir yimaado laakiin ma aha inuu yahay nin muwaadin ah لالي waxay leedahay xoolo baa tahay waayahay xoolo baan haya maxamed wuxuu leeyahay saaxiibo waqti maad siisaan dadkeena mas'uuliyadda Soomaaliya u haayo ma labadii kartaan waqtiga kama dama imaanayo FIFA taabi ay tiri wariya warbaahinta cusub waayahay wariyaha warbaahinta cusub hawsha halkaas ka wata idinka وجعل لها كومنتيدنا أنت بدنا نأخريه بس قف الباء وحنجعل لها كومنتيجي إن أقول جوابه لكن صوماليا كعة أو كعة ونصر كعة إنا بالبلدان قرن مدى صوماليا كعة أو يستاجا إنا بالبلدان قبل كبنادر صوماليا كعة أو يستاجا إنا تكسرتان قف الله عليه قف كمصماص وقبان كرتان وحنا دليله إنا وقبان كرتان ما أنت فرماجة دورتي جكبونتيدي حرنا واحد كو qaadeen xoog iyo awood ciidamadii idin dili jirtay oo idin leen jirtay waxa ku foosheen baawurtooda xoog iyo awood sidaas waxa ku keentay waxa waaye in aad isu korsoonaateen iyo inaad tiin dad midaysan hala taageero nabadda marka nabadda hala taageero gobolka banaadirna waa in laga baashaa taabid annaka ma aqoonsanin gudoomiye gobol iyo gudoomiye gobol banaadir ma aqoonsanin mana taageersanin waxaan rabnaa ninkaas dadka masaakiinta ee lacagta uu ka soo qaatay magacooda ee wadanka uu keenay dadkaas inuu siiyo xuquuqdii ay lahaayeen dadkaas waa inuu siiyo xuquuqdii ay lahaayeen waxaan isku dayaa inaan komitiyada akhriyo hal iyo labo inta ka gaari karo maadaama barnaamijku yahay barnaamij aad iyo aad u xiiso badan kuwaas oo aan rabnay inaan ugu soo horjeesano dadka mas'uulka uga ah musuqmaasuqa ee laga dhigay in ay madax ka noqdaan gobolka banaadir mana taageersanin mana aha inaan taageerno dadkaas iyo dad lamida intaba هيس جعل كم دارين أنا ضد ميسا جوجا دارتي مركا كرر لنقطة أنت بدن عبد الرزاق نور وحلية ثابت وودني وودني وحوغان دون تامركي أديك ضد أتخاند أما ضد صوماليات
laga soo celsho maraykanka ay ku sheekeeyaan dhibaatada iyo dhibka ay haysato markaas ayaa waxaa dhihi doontaa war ninku wadani maahayn oo ku qaldama marka hadalkaas hadduu hadal ka jam uu kaa yahana dee waxaan u malaynaa waa hadal oo sambuus waxay leedahay mooryan habargidir u hadli biliqo rabtaa haa biliqo ku rabaa aniga biliqo baan rabaa aniga qof soomaaliyeed ee wadani ahay ani qabiil muu hadlaayay qabiilna ma taageersanin laakiin waxaan kasoo horjeeda waxa waaye dadka masaakiinta ee lacagta lagu soo qaato in maanta laskaga dhigo in madax loo yahay waa taastaan kasoo horjeeda aniga mana taageersanin casho waxay leedahay walle waa u faa-iido thaabit inuu yeesho mucaarad iyo muxaafid walaalkay see yahay lama cabdiqadar nuur wuxuu leeyahay waa sax see tahay sax waa isku daya inaan komitiyada akriya raali noqdo haddaan akrin waayo dib ayaa mid idinka soo jawaabi doonaa hanaa subar waxay leedahay dadkan maraykanka dadkan baasaboorka maraykanka ayay u nacamleynayaan ee ka soco waa runta maraykanka ayaga miyaa leh qof kale wuxuu leeyahay dulmudid wuxuu leeyahay adiga iyo taabid video nika la idin sameynaa sikri wuxuu leeyahay su-aasha kusoo celi saaxiib way dhaaftay dib aan ugu soo celinayaa cabdisaaq nur wuxuu leeyahay qad ma jiro waxaa maleynayaa inay dhibaatadu dhankiisa ay ka haysato war sidaan filayo dadku saaxiib rag baa lacag ka baxday marka waa dulmi inuu soo celiyo dhalinyaro soomaaliyeed dhibaato u dheer weliba marka wuxuu xamar ka keeno ayaa la arkaa kolley america ma ahan saaxiibaan tuug soo shaqo doonta iga dheh dadku dhammaantood kumentiyada markaan dib u akriya haddadan dhammaantood 90% waxay isku raaceen inuu taabid u yahay nin tuug ah inuu taabid yahay nin musuqmaasuqa in taabid u yahay nin aan u qalmin xilka gobolka banaadir ee gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho dhammaantood waxaa la isku wada raacay shacabka soomaaliyeed waa dad dhiig leh waa dad wadaniyiina waa dad kasoo horjeesta musuqmaasuqa dhammaantiin waxaa idin leeyahay aad u mahadsantihiin sida aad walaalihiin soomaaliyeed ee lasoo tarxiilay iyo walaalihiin soomaaliyeed ee sida khaldan loo adeegsaday iyo walaalihiin soomaaliyeed oo u tagay inay waddan kale ka shaqaystaan ama u baxay inay badbaadsadaan naftooda iyo nafta faamilkooda iyo walaalahoodba inaad garab iyo hiil aad
siisaan iyo inaad ka qayb qaateen xataa barnaamijkooda aad iyo aad idinkaga mahad celinaya barnaamijkaygii aan ugu talagala galabtana intaas ayaan kusoo gabagabinayaa wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinku dhaafay heestan uu qaaday fanaanka xanuunsan allah subxaana wa tacala waxaan ka barnay inuu caafimaad siiyo cabdi taaliin warsame ee ah xafiisyadan dhaliilay waan dhaliilay وحاترا بيكولا وداغو دالانتيت بنودو دقاريو وانا قبا لقدبا بباترا دوهاني وحاترا بيكولا وداغو دالانتيت بنودو